وعلى آله وصحبه أجمعين دمان أخيارتا وسري يعقوب نقولها مهيجان يا دمان كسوق الجلياشة حفلة مرة بعد مرصد حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii sida la iclaamiyay way mahadsanyihiin dhalinyarada iyo rag kale oo waaweynba oo ku jira golaha mahigaan oo suxil saaray xafladan iyo waxa ka damayn doona oo ah ururinta suugaantii uu tiriyay Allah u naxariistay Abaan Yuusuf marka horeysa horta aynu duceyno sidii Fawzi ay sheegtay mar walbana aanu duceyno Allah subhanahu wa ta'ala inuu naxariisto runtii dhammaan dadka way taabatay qof kasta oo yaqaanay Yuusuf Allah u naxariistay taana waxa keenaysaa aqoontii dadku ay u lahaayeen iyo wanaagiisii baa keenaysa suugaanta Soomaalida waa joogtaa abwaanadii waxay dhahaan barordiiqda ama gabayaha laga tiriyo ama qaab kale carabtuna waxay dhahaan ar-rathaa oo waa qayb dhan oo kamid ah qaybaha shicirka cabeed ar-rathaa bay dhahaan qofka marka waa wax iska dabeecada in uu muddo xusuusnaado oo maartay qofka wanaagsanaayo dadku ay jeclaayeen oo hakada Imaam Bukhari wuxuu soo saaray الحديث waxaa dhintay Xasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Xasan baa dhalay sana Xasan baa la jiray marka ضربت امرأته قبة على قبره islaantiisa baa meel qabriga agtiisa waxay ka dhisatay teena ka dhisatay sanad bay halkan ku jid waxa la sheegaa marka maantii dambe sanad markiiba halkaas ay ku jidhay teenadii bay ka guudhay kadib habeenkii waxay maqashay cod alaa hal wajaduu maa faqaduu bal ya'isu fanqalabu alaa hal wajaduu maa faqaduu cidda waayeen ma helaan markaasaa mid kale wuxuu yidhi haatif kale bal ya'isu fanqalabu waa quusteenoo way iska tageen marka waxaa ula jeedaa qofka dareen badan bay kusoo abuureysaa xusuustii iyo qofka wanaagiisii markuu fiiriyo ilaahi subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto waa sidaas hadaa u sheegay toorkuyo dee geeridu ama isagoo u sugaanta runtii ku cabiraya cajiibka ahayd Yuusuf sida la sheegay anigu kale intaan ka aqaanay wuxuu ahaa ardaydii sida la sheegay 11 12 buu kusoo biiray dugsiga sare ee Gambool waan u maleynayaa inay joogaan rag la fasal ahaa hadda fadhiyaan 14 15 waa ka baxay runtii sidii lagu wada yaqaanay budwaagaasna ahaa isagoo yar afkaabnida iyo wanaaga iyo xishoodka iyo ixtiraamka iyo qofka ninkaas weyn wada naqaanay waa sifa baana dhammaan dadkaani waa wada yaqaaneen waxa dhacday marka wuxuu ahaa in badan waxa iga sheekeeyay nin fasalka kaabagalaas oo ay wuxuu dhihi jiray annagu ma baahnin haddii macallin naga maqan yahayo Abaan Yuusuf baa noo jooga markaasuu ama suugaana ku maldaaliyo ama maxaan ku yiraahdaa waano iyo maxaan ku yiraahdaa uga tusaaleyn iyo si kastaba 4 sano waxaan u maleynayaa inuu ku baasay ilaa foorkiisi markii uu dambeysay 14 15 markii uu ka baxay iskuulka isagoo aan u sheegin baa waxaan u tagay dugsiga alwaax oo hadda la sharqamiyay baan waxaan u tagay maamulaha oo saaxiib ahayn Cabdullaahi Umar Yare waxaan ku yiri marka hadda u baahatid nin macallin ku hayaa ila soo socodsii marka maalinta uu yeeray wuxuu yiri niyo macallin baan u baahnaa Yuusuf markii hore ma sheegay Yuusuf oo uu yiri Allah naxariisto waxaan ku yiri Yuusuf waxaan rabaa inaad maaragtay aad dugsigaas macallin ka noqoto runtii aniga ujeedadu waxay ahayd
saan loo socono dhalinyarada yaryar xoogaa af Soomaaligii iyo eray dhaqameedyadii iyo suugaantii iyo waxa moodaa in iska siyaaranayso dee magaalo loo batay marka inuu dadkan u faa'iideeyo bay ujeedadu ahayd isaguna uu hadda waa nin dhalinyaro ah oo maxaan ku ihahdaa oo jaamacad geliye oo isku dabiro marka wuxuu yidhi macallin maana hadda macallin noqon kara waan noqon ka dhahay baan ku yidhi ilaa waana yara runtii oo taariikhda sadawati laga sheekeynay xilligu dhashay cabdilid markaa wuxuu yidhi dugsiyada sare waa ogtihiin oo dee ardada macallimiintu badanaa waa heer jaamacadeed laakiin dugsiyada hoose iyo dhexe ardayda dugsiyada sare ka baxda waa macallimiin waa ka noqon karaan wuxuu yidhi markaan u keenay wuxuu yidhi ninkan waa yaryahay ninkan yaraantiis iska dhahay waa arki doontaa horta anaa kaa hubee bil kadib baan arkay baan weydiiyey marka had iyo jeer wada joogi jiray cabdiladiif waa nin saaxiib aan ahay weye wuxuu yidhi runtii ninkaas buu yidhi dhalinyarada khayr laas iyo buu yidhi iskuolkii waa hantay ardayda subaxdii daabuurka iyo suugaanta iyo runtii 3 sano la joogaan malaynaya intaa laga sheegay iyo in ka badanba Yuusuf Allah naxariisto waa midda dhammaan dadka ku abuuray runtii cid kastoo taqaanay iyo janaasadiisii aynu wada ogeyn ilaahi subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto sidaa la sheegayna waa muhim anu waxaan mooday intaa inay ka yaraydo waxaan ilaaway Yuusuf wuxuu noqday markii dambe gudoomiyaha ardayda buu ahaa form 4kiisii markaas suugaantiina sidaa loo ururiyo runtii dhaxal bay noqonaysaa isagana dee xusuus bay inoo noqonaysaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه